بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo videogan oo aan rabo waliba inaan soo gaabiyo oo kaga hadlayo wax la yiraahdo chia seed-ka. Chia seed oo ayaamahan aad looga hadlo oo faa'iidooyin badan oo caafimaad leh ayaan maxay ahayd rabaa inaan maanta ka hadlo. Chia seed-ka originally wuxuu ka soo jeedaa wadanka Mexico. Chia macnaheeda waxay tahay strength ama xoog. marka Mexicaanka bariyii hore waxay u isticmaali jireen dadka orda iyo dadka warriorska ah ee dagaalyahaniinta ayaa la siin jiray iyadoo loo siinayay inay ka helaan energy iyo maxay ahayd iyo vitaminaad iyo xoog inay ka helaan ayaa loo siin jiray adkaysan. marka maxay ahayd chia seed-ka waxa ugu muhiimsan oo horta faa'iidada ugu weyn uu leeyahay oo aadka looga hadlo waxay tahay inuu yahay antioxidant aadna ugu fiican waliba maqaarka oo la dagaalama da'da ayuu la dagaalamaa khaasatan haween hadaan nahay skinka maqaarkeena aad ayuu ugu fiican yahay. faa'iidadaas horta waa leeyahay. faa'iidada weyn oo kale uu leeyahay waxay tahay omega 3 waxa la yiraahdaa ku badan omega 3 badan ayuu leeyahay. omega 3gana waa fatty acidska waxa ay yiraahdaan fatty acidskaas oo u fiican brainka ama maskaxda. normally omega 3 waxyaabaha laga helo waxa kamid ah kalluunka fishka ama kalluunka laga helaa. marka fishka maadaama hadda fishkii badaha fish bad hadda anymore lagama soo saaray. fishka halkan waxa la sameeyaa fish farming wax la dhahaa jira. fishka intay badda ka soo saaraan oo ay meel ku guraan ayay wax ku daraan halkaas ay ku bacriyaan oo ku badiyaan. marka fishka badda ku jira waxa la sheegay inay ku jirto mercury wax la yiraahdo inuu leeyahay. maadaama fishka uu mercury leeyahayna mercurygaas caafimaad darra ayuu keenayaa. marka omega 3 iyo fishka loo raadsan jiray in halkan loo raadsado ayay dadkii marka door bideen maadaama fishkii mercury iyo caafimaad darra lagu sheegay inuu mercury leeyahay. marka omega 3 fishka aad ka heli lahayd ayaad ka helaysaa chia seed-ka. chia seed-ka wuxuu kale u fiican yahay wadnaha, wuxuu u fiican yahay dheefshiidka systemka dheefshiidka, wuxuu u fiican yahay murqaha, wuxuu u fiican yahay lafaha, wuxuu u fiican yahay ilkaha maadaama ay calcium badan ku jirto. waxa weeyaan chia seed-ka waxa loo yaqaanaa hadda waa super food waaye. fitamiinaad iyo maxay tahay nafaqooyin badan iyo nutrition badan ayaa ku jira. marka waana ininihaas yar yar oo wax weyn uma eka haddana faa'iidada ay leeyihiin lama qiyaasi karo. I'm sure dad badan oo idinka midana inay maqleen chia seed-ka iyo waxtarkiisa. inta aan maqlinna haddaan idin sheegayaa ka faa'iidaysta. waxaan also idin diyaariyay oo aan mar dhow rabaa inaan idin tuso pudding ama ma garanaysaa dessert yar oo easy ah oo aan chia seed-ka ka sameeyay oo aad guriga ku samaysan kartaan khaasatan waliba Ramadaanta u fiican ama afur ama suxuur aad u isticmaali kartaan oo wax weyn ahayn oo dib lahayn. Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim. hadda waxaan sameynaynaa yogurt healthy ah oo aad guriga ku samaysatay Ramadaantana u fiican afurka xaqiisa oo ku qaboojinayo oo fitamiinaad badan iyo energy badan aad ka helaysid iyo nafaqooyin badan. marka yogurtkan hadda u jeediin waxa weeyaan Greek style la dhahaa. waa yogurt yara adag, waa organic Greek style yogurtkan ayaan ka sameynaynaa. yogurtkeena waa wax wada natural ah oo aad samaysanaysid gurigaaga. yogurtkii waa kaas. waxaan ku daraynaa wax yar oo maanga ah oo aan halkan ku shiiday. hal qaado kale. wax yar oo maanga ah. waxaa kaloo aan ku dari karnaa haddaad doontid sidiisaas waa ku cuni kartaa, waa qof iyo dooqiisa. wax yaroo malab ah aan ku macaanaynayno. sidiis haddii lagu cunana dhib male, maangada macaan leh. haddaa rabtid saas oo ku dayn kartaa. haddaa rabtid wax yaroo waxaa ku daraysaa
garanoolahan ah korka kaga dari kartaa saas waa ku cuni kartaa hadaa rabtid again waxaad ku dari kartaa chia seed kan biyaan ku radiyay maxaa yeelay chia seedka toos looma isticmaali karo in biyo lagu radiyo waaye marka wax yar oo chia seed oo aan radiyay aan ku darayaa saasaa ku cunaysaa intaas hadaa cuntid afur timeka nafaqo kale iyo cunto kale uma baahnid oo ku dhargaysaa fitamiinad badan iyo energy badan na waa ka helaysaa taas waa taas waxaan kaloo idin tusayaa kan waxaa la dhahaa kafiir waa caanahaas adag horaa idinku sharaxay kafiirka iyo faa'iidadiisa kafiirkan asagana haddaad doontid maangadan waa ku dari kartaa oo sida macnihii wuxuu dhadhamayaa maxaa la dhihi jiray mango laasiga waxay dhihi jireen haddaad doontid jiyahaana waa ku dari kartaa dhowr qaadoo chia seedka ah ayaad ku dari kartaa waa ujeedin waa adag yahay saasuu adag yahay waa yara creamy yogodka kama dhaco kafiirka waxaan ka hadlayaa xagga thicknesska laakiin kafiirka yogodku aad uga faa'iido badan yahay maxaa yeelay kafiirka waxaa ku jiro in ka badan 40 bakteeriyo oo kala nooc ah oo jirka faa'iido u leh horaan uga hadalnay kafiirka jirka marka uu galo waa bacteria nool wuxuu la dagaalamayaa bakteeriyadii xumayd ay jirka ku jirtay ayuu ka saarayaa waa wax nool waaye waxaan oo caloosha markuu galo shaqo fiican qabanaya yogodka waxaa la yiri waxa ku jira maxay to ilaa 7 bakteeriyo kala duwan laakiin kan in ka badan 40 bakteeriya ku jira oo jirka faa'iido u leh taasaan halkaas kaga baxaynaa qofkii kafiirka xiisaynayana video waan ka sameeyay waa wax aad u fiican videoyada meesha ku jiro dhan waa videoga ugu qiimaha badan waa inaad ka faa'iidaysataan kafiirka chia seedka marka qofka raba inuu soo ibsado baakadiisa waa tanaa organic chia seed internetka laga helaa khaasatan Amazon asagoo noocada iyo asagoo nooc madooba labadaba waa jiraan noocan aniga aan haysto waa madow cadaankiisana waa jiraa waa isku mid qofka dooqiisa asagaa og marka chia seedka marka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidadiisa marka anaa hadda idin sharaxi doono laakiin waxaan idin tusaayay uun waxyaabaha sida chia seedka loo isticmaalo aad yogodada ugu darsan kartaan oo uga faa'iidaysan kartaan marka waxaan rajaynayaa inaad aragteen maxay tahay sida easy-ga ay tahay oo aad u samaysan kartiin yogurt healthy ah organic ah waliba aad chia seed ku dartay oo chia seedka nafaqadiisa iyo fitamiinaadkiisa iyo faa'iidadii aan ka soo hadalno dhan aad ku darteen isticmaala rabadaanta waliba aad u idin caawinaya maadaama chia seedka uu protein badan leeyahay iyo adkaysi badan iyo fitamiinaad badan marka videogan haddaad ka faa'iidaysateen ama aad jeclaysateen thumbs up iyo subscription haddii aad wax su'aalo qabtaanna xagga hoose igu soo weydiiya anoo isku dayi doono inaan idinka soo jawaabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu